السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما نقصن دعوة ملك سود ندى عليك جوكتان مركلي مقال عصب سود وهذا مركلي كورسين صمرتان تجي حتى قعدت سنة كان سبسكرايب صارتان مقال كان الله يكرسان وشركة رسان ونقص بيرتان أصحابته نطاوتات كم دعتان أنت نقص بيرت الله بدك كوني لبعضن أدبد مهسنتين أنت نقص بيرت الله بدك كوني كوبي دعتان كوني كوتشرنا هديرنا أدبد مهسنتين دعواتش يده هري دعواتش تنبو أدبد مهسنتين يديك الأنتين وعبار إذن يديك الأنتين ما نقطتين وحب الصومة هدعوة المدة صومنا دمانتود أنت وإحنا قطي أنت هير قاعد بواحد حكون قطي وبشدة الصومالية كتبان أنا حتى قلت لك كم هذا نبي لقى جماعة تاجرك وهذا دعوته أطبق مع حسن تاي هذا تاجرك وهذا جنا دعوته أنا هذا تاجرت ودعوته أطبق مع حسن تاي مركين تلاقي معدو الفنان معه لا يا وحك شيء ما أنت وأنت على سينا بردك وسمي يا أنا يقول الله ذكرني لا تنكي وحيا يقول الله يا كبرنا كل مقال كرة صوت دعوتنا وقدرة كنا وقدرة يا because of حلقة شكيني يا waxyaabo ugu dhacday ku galaya ka badnaa iyo waxyaabo ugu qabsamay dad badan nimcan hilaa ayaa waxa uu sheegay inuu sanadka 2020 uu soo saaray heestii ugu saameynta badneed bulshada Soomaaliyeed oo muddo ka yar 8 bilood meelam 9 bilood ku gaadhay 8 milyan oo taawasha heestaas oo noqotay heestii qof kasta oo dhageysta ama qof kasta oo mar dhageysta wuxuu laba jeer ku socodsan maybe laga yaabaa dad badan Soomaali xitaa inay offline tahay oo bacaani YouTube ka seerti ka dhigeen qaybta offline keenay ugu jirta qaar badan inay dolan galaysan tahay heestahayd karaysta bukaanadii baraarugayo baxay heestaas oo noqotay heestii ugu saameynta badnayd 2020 keesii soo baxay sidoo kale nimcan hilaa wuxuu xusay inuu noqday sanadka 2020 sanad oo canaan weyn soo jeedinayo dhalinyarada iskaabulada ama dadka iskaabulada yaan dhalinyarada ma dadka weynii inta xaajidooda ama xaajidooda hore kala tageen ilaa xataa iskaabulada xaq bulshada hoosta ka gala kaligood kuwana canaanayay oo Minneapolis ee dalka Mareykanka uu kula midoobay ama uu noqday inuu la midoobo xaaskiisa carruurtiisa hambaliyaan kula saaxiib ma sha Allah keep going waxa uu ka baxay sidoo sheegay nimcan hilaa inuu socdaalkii u dhaxeeyay Muqdisho ilaa Djibouti ilaa Boorame ilaa Djibouti Muqdisho ilaa Djibouti inuu taana ka baxay taasna waa talabaad takalo inuu ka go'goostaa uu ka tagay Afrikana taasna iyaduna u jirtay waa sanadka 2020 waxa uu qabsoomay alfanaan nimcan hilaa iyo waxyaabihii uu run ahaantii la kulmay waa sidoo inala wadaagay ama sidoo isaguna sheegay haddaba sanadka 2020 daawade adiga maxaa kugu la yaabadnaa ama maxaad aragtay oo ku soo biiray baraha bulshada ama aad run ahaantii la kulantay wahagaag hore waxaan sheegay habeen muqaalan dubiye 2020 dabayaaqadiisii markii la saddex afar ka arsanayeen 2020 markii soo galan inay la wadaagi doono waxyaabo igu la yaab ka badnaa laakiin tan nimcan la ayaan soo horeysay tii aanu aan arkin waan idin sheegi doonaa insha Allah laakiin maybe kan laga yaabaa inaad xasuusataan dhacdooyinkii la yaab ka badnaa YouTube-ka soo gano ama YouTube-ka aynu ku soo baahino daawasho ka badan 100 ama 50,000 ama 70,000 ama 20,000 ama 30,000 in ka badan ay daawadeen YouTube soo galno ayaan jeclaysanay la wadaago oo koow ka soo bilaabo wixii ugu la yaabka badnaa aan arko intiis 2020 YouTube kana soo galno anigu ka hadlo isku day hanaab kor gabadh leeyahay oo gabadh Soomaaliyeed oo caruurta la sheegay in iibsato ama in ay caruurta ka ganacsato jirkooda oo magaalada Muqdisho lagu qabtay kadibna dawladdu sii deysay iyadoo cadeysay in ka ganacsato jirka caruurta ama ay caruurta u dhoofisa qaaradda Yurub taas oo dawladda Soomaaliya ka saamaxday iyadoo cadeysay in haddana tahay qof ka ganacsada caruurta waxyaabo igu la yaab ka badnaa dawlad ogsoon oo og in gabadhan ka ganacsato jirka caruurta iyo sidoo kale dhoofintooda haddana dawladdu sii deysay wixii igu la yaab ka badnaa waxa kale labaad igu la yaab ka badnaa wuxuu ahaa walaashin Ayuuni ma wanaagsan inaan soo bandhigo haddana xumaanteedina ka sheekayno laakiin muuqaal baraha bulshada wiiga dhan haystay oo noqday waxyaabo ugu daawashada badan social media iyaguna inkastoo dadka Soomaaliyeed xumaanta ka helaan idina muuqaal laga duubay ama muuqaalkaas uu doono been baxaaday inkastoo iyadoo laga duubay muuqaalka oo aan wax ka muuqan jirin haddana muuqaalka ugu hadalay inta badan baraha bulshada oo noqday ka saddexaad soo raaca waxa weeyaan aan arkay heestin macaan hilaa 8 milyan gaadhay oo waxyaabo heesa dhowr iyo 10 sano ama 8 sano YouTube ku jiray iyaguna ay ka daawasho badatay horaan soo sheegay heestaasna waxa kale labadan soo raaca wax weeyaan xanuunkii coronavirus oo adduunka saameyn badan ku yeeshay isaguna 2020 isaguna waxyaabo dhacdooyinkii ugu la yaab ka badnaa waxa waxa kale soo shanayn malinay isaguna waxyaabo ugu la yaab ka badnaa YouTube-ka hadda idinku daawada qaar kale xasuusantii inaguna ay leeysani waad la wadaagi kartaan wuxuu ahaa in uu jiray oo la soo bandhigay oo la hadalhayay oo ugu hadalhayn badnaa عوالة آذن يولاش المسحس ولا فنانة يعني فنانة يجينا إن سكورين كستون كل جودة هاي تحصلنا بهذه الوحياة بيجوا هذا أنت بند لابد يكون يلاحظك السوشيال ميديا قيب تفنك أيها
qaybta siyaasadda haddaynu nimaadno ra'iisul wasaare ummad badan oo Soomaaliyeed u malayn inuu khushuucdooda jeclayn oo xilka ka tagay Xasan Cali Khayre taasoo 2020 bahayd kulli haddaynu koobi laba nin caawid ma soo koobi karayno runaantii halkan kuma soo gudbin karayno 2020 ugu tagay inta khayr ugu baxay ilaahay ugu wado 2020 ugu soo galay 2020 waxa jireen inuu khayr noogu bilaaban doono khayrna inuu ku dhamaan doono insha Allah laakiin waxaan ka rajaynayaa ilaahayna inuu sanadka cusub islaamka nabad qab inuu gaarsiiyo kan miilaadigana qudisa isagana 2020 inuu noqono dad marba wada joogo oo hel iyo walaal bayso runaantii aad baad u mahadsantiin sanadka 2020 wuxuu noqday sanad dhacdooyin badan lahaa aniga qudada saameyn badan igu lahaa sanad waxyaabo badan oo hami iyo higsi lahaa la gaaray qaar kamida qaar ay wali dhiman yihiin ayuha qisooyin badan iyo dhibaatooyin badan ay jireen oo 2020 ahayn hadii laga sheekiyo ama hadii la sheego qaar badanna runaantii aanay soo marin xanuun badan aanu jirin runaantii waxaan ma daawada adigu inaan nala wadaagi doonto waxyaabo ku kala yaab ka badan sanadkii 2020 tagay inaan nala soo wadaagi doonto qaybta commentiga noogu reebi doonto aad baad mahadsan daawada meel soo dhanaa alag joogtaan waad ku mahadsantiin kamid ahaanshihiin iyo kusoo beeritaankiina haddaad hore u joogtaad baad mahadsan tahay haddaad cusubtiin soo dhawow nagu soo beer asxaabtana daawata ee halkan noogu xiran yani nooguma xidhnee yani asxaabta customerka noo ama subscribe noo kamid noqo adiguna subscribe noo saar aad baad mahadsan daawada inta muuqaalka ay ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh